maxkamadda rafcaanka ee gobolka Murudijeex ayaa mar kale xukun ku riday inkastoo ay ka qafiifisay xukun hore loogu riday dad dhawaan lagu xukumay ama lagu soo qabtay iyagoo dalka qaad soo gelinaya muddo kooban oo xayiraad dalka laga saaray inuu qaad soo galo qaar ka mid ah qaranadii u doodayay dadkaasi xukunku mar labaad ku dhacay ayaa sheegay in kastoo laga qafiifiyay xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Murudijeex dadkaasi ku riday in haddana uu yahay xukun culus oo aanay dadka qaar qaadi karin dacwadihii jaadka oo saaka go'aan maxkamadda rafcaanku ka soo saartay qayb ka mid ah dacwadaas qayb ka mid ah saaka go'aan maxkamadda rafcaanku ka soo saartay oo horeyn si loo socono birgirood gudidii ka hortaga xanuunku markuu go'aanka soo saaray waxaa dhacday in dad badan dhammaan gobollada dalka jaadka la joojiyey la xidhay maxkamadana la saaray taasoo maxkamadda gobolka Murudijeex ay ku xukuntay dadkaas 3 sannadood iyo 3 milyan oo ganaaxa iyo hantidii gaadiidkooda oo lala wareegay saaka maxkamadda rafcaanku waxay xukun ka soo saartay dacwadaas oo aan hore anagu qaran ahaan aan rafcaan ugu qaadnay dadkaas saaka waxay soo saartay maxkamadda rafcaanku in xukun ka kooban in gaadiidkii maxkamadda gobolka hore ay u xukuntay in lala wareegay in gebi ahaanba maxkamaddii rafcaanku meesha ay ka saartay oo ay dadkii gaadiidkoodii u soo celisay kuna beddeshay xukun ganaax ah gaadiidkii la ganaaxo kaliya oo dadkii loo celiyay markii ganaaxa iska bixiyaan dhanka kalena maxaabiistii xidhnayd ee 3 sano iyo 3 milyan ee ganaaxa ku xukunaydna waxay maxkamadda rafcaanku saaka ku xukuntay 16 bilood oo xadhig ciqaabeed ah iyadoo maxkamaddu gebi ahaanba ka saartay eeddii xafiiska xilaalintu hore maxkamadda gobolka ugu soo eedeeyey ee xeerka kastabyada maxkamadduna waxay xukunkeeda ku salaysay oo keliya in dadkaas ay xukuntay ay u cuskatay qodobka 505 xeerka ciqaabta guud oo ka hadla amar diiddo inkastoo ciqaabta qodobkaas uu dhigayo ay maxkamaddu kor martay qodobkaas amar diiddada ay maxkamaddu maanta ay u cuskatay xukunkeeda waxa uu dhigayaa ciqaabta ugu badan u dhigaya waa 3 bilood oo xadhig ah ama ganaax halka maxkamaddu saaka ay 16 bilood iyo 14 bilood qaar 14 bilood ay ka dhigtay iyo qaar ay sanad ka dhigtayba ay xukunkeedii ku salaysay taasoo aanu rafcaan ka qaadanay ciqaabta dadka xidhan la saaray oo aan u aragno inay sharciga baalbarsantay sabab oo ay qodobkii sharci wuxuu dhigayna ay ka badan tahay dhankooda qaar ka mid ah helada dadka xukunku maanta ku dhacay ee horena maxkamadda gobolka Murudijeex ay u xukuntay ayaa codsaday in dib loo eego mar labaad xukunkani dadkaasi ku dhacay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Sahra Suudi Iimaan waxa aan halkan u imi aan ka hadlayaa ummadda ku xidhan meel kasta gobolada ilaa maxaan ku raacay caasimadda aniga waa qoladii qaadka ku xidhnayd waxa ku jira inaan walaalanahay oo u xidhan qaadka 5tii bisha lagu qabtay qaad waxa weeyaan qabashada dadku marka aynu eegno majority-ga inta maanta magaalada ku nool ganacsiga qaadka inta ka ganacsataa 3 milyan ee magaalada ku nool 2 milyan iyo bar baa ka ganacsada qaadka taa waynu wada ognahay dawladdu qaadkii guddi go'aan baa lagu joojiyay go'aankii guddidu ay qaadatay ee qaadka lagu joojiyay haddana waa lagu soo dedejiyay in la sii daayo qaadkii dawaay kama maaraysanin oo cashuurtii baa ku xidhan annagu waxaan u aragnaa dawladdeeda aanu u sheegaynaa tacaddiga iyo dhibaatada inay naga dayso dadka iyaga masaakiinta ee saldhig walba ku daadsan ee xidhan majority ahaan aniga qandahaar buu ku xidhayay inankayagu halkaas aniguna waxaan deganay 150 saddexda waqti mastaafada intaa leeg qof maxbuus ma uga geyn karaa maya taala waxba uma geeyo baabuurtii baa naga xilxilan baabuur fiitisa oo ii shaqaynayay inuu xidhan yahay isagoo ubadkiisii aniga gacanta ku haya dawladda waxaan leeyahay maantana dadkii xukunka lagu riday
dadku ma qaadi karaan baabuurta ganaaxa la yidhi hala ganaaxo dee maba qaadi karno dawladda hoos ha noo eegto dadkeedii baanu nahay kuwii doortay baanu nahay sharcigii aanu ku doorannay inuu noo toosnaaday yaan nagu karbaashin dawladdu ha eegto madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dadkiisa Muuse Biixi Cabdi inuu hoos u soo eego oo dadkiisii baanu nahay oo kuwii soo saaray baanu nahay kuwii kursiga saaray baanu nahay tusaale ahaan shalay waxa lahaa far baan ugu hiilinayay sida shalay xabadii ugu hiilinayay maanta haddana inaan dhaahdo ma fartayda eeday waa in la eegaa oo dadka masaakiinta dhibaataysan la eegaa dawladda hoos noo eegtaan leeyahay sidaasaan hadalka soo gaabneen kaga baxaya ayaan Cabdilaahi baa iga xidhan 6 caruur ayay ka tagtay ilmo yar baa 20 cisho hay umuladeed kiilo jaada lagu qabtay 2 bilood iyo 4 cisho xidhan tahay 2 bilood iyo 4 cisho xidhan tahay 6 caruura ilmaha 20 jiray ayaa u yar 20 cisho jiray ee gogasha ii yaala xukun lama xukumayo lama waa rumaan baa la leeyahay caruurtu way cadalan tahay gurigii baan ku hayaa dawladda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ka codsanaya inuu wax noo qabto dadkii doortay baanu nahay dadkiisii baanu nahay waxay ku xidhan tahay aadashiine habeen iyo dharaar halkaas xawaadlaan deganahay aadashiinaan ka tagaa 6 caruur aha gacantaan ku hayaa kolka dawladda waxaan ka codsanayaa sharafta leh madaxweynaha waxaan ka codsanayaa dadka xidhan ee jaadkii la soo daayay ku xidhan ee xidhan 2 bilood iyo 4 cisho umul lahay tahay iyadoo 20 cisho umulana la xidhay taayna madaxweynaha wax noo qabataan doonaynaa dadkaagi baanu nahay horta ilaahay baa mahadle amniga iyo nabadgelyada siiyay dib kasto timaadana waxay leedahay hawlo badan oo fara badan bay leedahay gudidu arrinka ay ku dhawaaqday iyada lafteedu meeneegin dhibaatada hoostaala iyo waxa hoos yaala dawladdu shay kasta bini'aadan baynu nahay gafka codka ay soo jeedisay arrinka ay keentay in loo hogaansamo wax meesha yaala laakiin insaan baynu naho ilowshaha iyo gafka iyo qaladaadku waa wax dhici karo xagga Allah ka socdo ilaahay insaan baynu nahay wax la inagu abuuray taa darteed dawladdu insaanka inay ka faa'iideysato ma way qaldameen haba saahaatee dadkan dad bay u shaqeeyaan nin walba intaas oo qoys buu leeyahay intaas oo caruur u shaqeeyaa ama gaari ugu shaqeeyaa ama sidiisa kala ba ugu horo inay dawladdu bal haba ahaato ha xidhan inay ka warhayso raashin baa la bixiyaa wax kasta waa la bixiyaa hay'adaha wax bixiya inta ay meesha ku haysato mid qolo qoyskiisa wax siisay kuma jirto ta kale dadka xanuunka iyo dhibta laga ilaalinayo kuwan meena ku jireen kuwa loo gurmanayo loo cararayo ee dhibta iyo dhibashada iyo xanuunka laga ilaaliyo meena ku jireen toban bay u xidhan yihiin silsiladu ugu xidhan yihiin dawladdu waxa kari weyday in afka wax yar afka lagu xidhan u geyso way kari weyday maalin kasta halkaas la keenaya marka adigu maxkamadda galaysan afka soo xidhan lagu leeyahay anigu waxaan soo xidhay kan maxbuuska miyuna xaq iyo xuquuq lahayn oo in dawladdu u dhiibto oo afka u xidhan miyuna xaq u lahayn dawladdu taana way kari weyday dawladdu waxaan leenahay wargafku waa dhaca waana insaan dhibaatada iyo gaajada iyo xanuunka aad beeraysaan baa ka xun xadhiga aad ku haysataan waxaan oran lahaa ka codsan lahaa madaxweynaha baruur kaliya baruur qulbisa shaqaalahaaga ka hooseeya dulmiga ay dadka ku hayaan hoos u eego u fiirso oo eeg ummadana iska saamax afis madaxweyne ku saamax anaga imika waxa u xidhan 8 ciyaala tuqaan yar buuti tuqaankii wala uu halahayaa 8 ciyaala wax dabka u saaran oo maanta xibnidiisa waxa ka daran 8 ciyaala aanu taydii u taagla 8 ciyaala ka daran oo warwar iyo dhibigu haysa marka waxaan leenahay war dadka aad u dhimashada iyo xanuunka iyo dhibta ka ilaalinaysaan kuwa nal waa la mid gaajay u dhimanayaan way dardaraysan wax weyn way aradan yihiin kii uu shaqeynayay wax u doonayeen waad xidhateen dawladda waxaan leenahay ha iska saamaxdo oo yeelan gafka insaanka ka yimaada ee bini'aadanku ilaahay bay gaf bini'aadanku ka galaan waaba waxay gudi soo jeedisay gudida lafteedu ma sharci baa ma la dhaariyay ma kitaab la mariyay baarlamaanka iyo guurtida iyo madaxweynaha uma noognahay in kitaab xaq mareen haday qalad nagu xukumaan iyo sax nagu xukumaan laakiin qof la magacaabo dibad laga magacaabo inuu dadka wixii uu soo jeediyay loogu joogsadaa waa xaraan madaxweynaha waxaan leeyahay ubadkaaga iyo dadkaaga aad mas'uulka ka tahay ilaahay waa kugu eegayaa hoos eeg xukunka ka soo baxay maxkamadda Rafaanka ayaa imanay kadib markii muddo ka soo wareegtay xukun hore uga soo baxay maxkamadda gobolka Muradjeex oo dadkani mar hore ku dhacay وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال ورركن مقبهية عالم قبل دعسنا الفار تيفي هرقيسة